puntland oo kaashanaysa maraykanka ayaa mar kale dhulka la jartay kooxda daacish welibana goobo waaweyn oo ay ku jirto xarumihii ugu waaweynaa ee kooxda ayaa duqayma laga geystay khasaaraha ayaan warbixin idinkaga hayaa waxaan kaloo aan eegi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu hil iyo hoba la garab taagan yahay puntland iyo shacabkeeda waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo shacabka reer puntland ee sida geesinimada ah ugu bareeray inay khawaarijta daacish ka xoreeyaan deegaanada iyo meelihii ay soo galeenna dib ay uga bixiyaan si ay u hungowdo rabitaanka iyo hamiga khawaarijta daacish ay ka qabaan deegaanada dalkaas waa dagaal xaq ah shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana ay waajib ku tahay inay garab istaagaan waxa kale oo aad maqli doontaan kooxda daacish oo qorsheynaysa arrimo la yaab leh oo halis ku ah shacabka reer puntland haddii aan haddaba laga hortagin goobaha ay beertilmaameedsanayso iyo waxyaabaha la hadalhayo kooxdaasi in ay samayn karto ayaan idinla wadaagi doonaa muuqaalkan laygare janalkeena subscribe saar haddii aan ku bilaabo warbixinteenna puntland ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in iyada oo kaashanaysa dowladda waddanka maraykanka ciidamadeeda ay markaasi duqayn ay ka fuliyeen buuraleyda caalmiskaad ee gobolka bari iyada oo halkaasina ay ku dishay ama ay ku beertilmaameedsatay xubno ka mid ah kooxda daacish isla markaana puntland waxay sheegtay in goobahaas ay duqayshay ahaayeen goobo muhiim u ah kooxda oo ay ku yaaleen fariisimo saldhigyo iyo talisyo muhiim u ah kooxda hogaamiyaal ay ku sugnaayeen rag ajaanib u badan ay ku sugnaayeen waxaana la aaminsan yahay inkastoo aan weli rasmiga tirada la sheegin in halkaasi lagu dilay rag badan oo daacish ah isla markaana mar kale halkaasi ay jug ku gaarsiiseen goobahan ay puntland duqaysay ayaa waxay ahaayeen goobihii ay ka soo maleegi jireen dhagarta iyo sidoo kale qaraxyada iyo goobaha waxyaabaha ay ciidamada ku dhibaataysa mar walba ama ay doonaysa dagaalkeena isaga difaacdo waxaana goobaha aysan ciidamadu tegi karin inta badan loo adeegsadaa duqaymaha oo maraykanka iyo imaaraadka ayaa joogto ka dhigtay duqaymaha ay u geysanayaan daacish ay puntland ku garab istaagayaan waxaana saacad walba ay markaasi daacish u tog haysaa dhanka cirka oo ay cabsi weyn ku abuureen diyaaradahan duqaynaya ee markaasi dhulka la goynaya halka ay ciidamaduna weli ruqaansanayaan godad waaweyn togog iyo goobo aan horey loo aragay ciidamadu booqanayaan saacad kasta iyo maalin walba ayagoo u ruqaansanaya dhanka kooxda dhulka kooxda gacantooda ku haray oo weli ballaaran ayay ciidamadu doonayaan inay intay dagaal ku qaadaan ay halkaasi kala wareegaan kooxda isla markaana ay soo afjaraan kooxda daacish oo markaasi muddo dheer dhulka buuraleyda ee gobolka ku dhumaanaysanaysay halka ay kooxda daacish iyaduna ay samaynayso wax walba oo ay jiritaankeeda ku xaqiijin karto dhinaca kaleeto waxa markaasi saacadihii u dambeeyay soo baxayay xogo sirdoon oo la helay oo sheegaya in kooxda daacish ay doonayso inay goyso ama ay jarto oo ay qaraxyo la dhacdo wadooyinka isku xira magaalooyinka waaweyn ee puntland gaar ahaanna magaalo ganacsiyeedka boosaaso iyo sidoo kale gobolada kale ee puntland ilaa soomaaliya ku xirta wadadaas dheer ee markaasi boosaaso ka timaada ee dhanka soomaaliya soo aada gobolada kale ee soomaaliya oo nugaal mudug ilaa iyo koonfur socota wadadaas iyo boondooyinka ku yaalay doonaya inay gooyaan oo ay qaraxyo la beersadaan sidaas iyo xogaha sirdoon la helaya ay sheegayaan ujeedkooduna waxa weeyaan baan leeyahay in ay shacabkan ay caqiyaan oo ay ka jaraan gurmadka shacabka iyo reer puntland kan isgarab taagan yar iyo weyn rag iyo dumar dowlad iyo shacab isgarab taagan oo dagaalka ku jira oo hiilka iyo hooga iyo cuntada iyo xoolaha nool iyo wax walba iyo rasaasta la garab taagan iyo gurmadyadan imaanahaya sidoo kale waxay doonaysaa inay iska sii jeediso awoodda iyo indhaha ku soo jeeda ee ku aadan dagaaladan soconaya marka taas ayaa keentay baa leeyahay in kooxdu ay ku fikirto waxyaabo aan horey markaasi looga filanayn oo ay ka mid tahay buundooyinkan leeyahay inay goyso laga yaabaa ayadoona durba ay puntland ka taxadarayso oo buundooyinka iyo dhinacaas oo dhan la xiray si aan markaasi aysan u soo gudbin isla markaana go'doon la geliyay jaha walba ay ku baxsan karaanna ay markaasi dabcan ay ciidamo la geeyay welibana firxadka kooxda ayaa weli soconaya iyadoona kooxdu ay markaasi qayb badan oo kamid ah oo Soomaali iyo ajaanib isugu jiraba ayagoo firxad lagu qabanayo dhulka kala duwan dhinaca kale to madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta khudbad ka jeediyay fadhiga baarlamaanka Soomaaliya ee Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in uu garab taagan yahay oo ay hiil iyo hool garab taagan yihiin
ciidamada Puntland iyo shacabka Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daesh oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee caalamka ee argagixiso waxaana uu madaxweynuhu sheegay inay guddi taakuleyn uu dhisi doono uu magacaabi doono guddiga taakuladaana ay ka shaqeyn doonaan gurmadka iyo garab istaagga reer Puntland gaar ahaan ciidamada dagaalka kula jira kooxdaasi Daesh xukuumadda iyo dowladda federaalka guud ahaan waxay magacaabi doontaa mar dhow guddi u qaabilsan sidii loo garab istaagi lahay taakuleyn wixii awooddan ay saamaxayso loogu garab istaagi lahay ciidamada iyo shacabkaas halgamaya ee khawaarijta la diraysa hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud si weyn loogu dhaliilayay in ay faraha kala baxday isla markaana aysan wax hiil iyo hooy aysan Puntland la garab istaagin dagaalka Puntland ku jirtan uu yahay mid xoog badan koox caalami ah awood badan oo ajaanib ay ka buuxaan la dagaalamaysa dhulka buuraleyda ee gobolka Bari oo muddo 2 bilood ku dhaw ay dagaaladu soconayaan waxaana dadka eedeynaya dowladda federaalka leeyihiin dowladda federaalku maadaama ay dalkooda iyadu madaxweynaheedii xasan yahay dowladda federaalku waddankooda ay hogaamiso waddankooda oo markaasi mas'uul ay ka ahayd weybay Puntland oo kamid ah Soomaaliya indhaha uga saabatay weybaysan dagaalka qayb uga ahayn weybaysan hiil iyo hool la garab taagin weybay dhaqaalaha u haysataa iyo dhaqaalaha dagaalka loogu talagalay hadday hub ahaan lahayd hadday cunto ahaan lahayd hadday dhaqaale ahaan lahayd Puntland waxay sheegtay dhawaan madaxweyne dare wuxuu sheegay xabadda qoriga ka dhacdana ha ahaatee cid walba oo hiil iyo hool la garab taagaysa inay soo dhaweynayaan oo ay ka qaadanayaan loona baahan yahay ayadoo cadaynaysa in Puntland aysan diidayn wixii dowladda federaalka uga yimaada oo ay ka mid tahay dhaqaale ay ka mid tahay hub ay ka mid tahay cunto ay ka mid tahay dawo ay wax walba ay ka mid yihiin inaysan diidayn ayaa muuqanaysa oo dhanka waxbaha la isku diidan yahay siyaasadda kama mid ah tan oo Puntland way rabtaa cid walba wax u garab istaagaysa hadday federaal noqoto hadday shacab noqoto iyo hadday caalamka noqotaba dagaaladan u dhaxeeya Daesh iyo ciidamada Puntland ee ka soconaya buuraha gobolka Bari ee Caalmiskaad ayaa waxa ay noqdeen kuwa markaasi dagaalo culus oo wali soconaya oo Soomaaliya oo indhaha ay ku hayaan oo ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee xilligan Soomaaliya ka taagan Daesh oo ilaa 1500 inay tiradoodu gaaraysa lagu qiyaasatay ku sugan Puntland ayaa waxa iyaduna ay wada iska caabinaysa ciidamada Daesh ma ogola baa leeyahay mana rabto inay ka dhamaato buuraha waana tan keentay in kooxdu ay isku dhajiso dhulkaasi oo laga fujin lahayn ilaa iyo iminka ciidamada Puntland ayaa mar kale doonaya dagaalo kale inay qaadaan maalmaha soo socda oo ay kooxdaasi ku dhardhaaraan welina hawlgalla ayaa ka soconaya dhulka buuraleyda ee gobolkaasi gaar ahaan tog jacayl tog la yiraahdo togaas oo kamid ah togaga ilaa iyo iminka la isla dhaafi lahayahay oo kooxduna ay bronzin ka dhigatay isla markaana ay miinooyin sida ku fasaxday baa leeyahay oo goob walba ay miinooyin gelisay sidoo kalena togaga hareerahooda iyo buuraha hoostooda ay degan yihiin kooxdu waxay Puntland sheegtay 75% inay kooxda qabsatay dhulkii isla markaana waxa yar ay ku haray oo dhulka ay ku sugan yihiin ay Puntland leedahay waa dhul aan buuro kaliya ahayn ma dhul banaan ah oo banaanka hadii la isla tago bay leedahay Puntland barqa iyo cad ayaanu ka diiranayna oo aanu ka adkaanayna kooxda oo saas ku soo afjarayna waxa ay ku daahday ama ay ciidamada markaasi hortaagan waa buuraha waaweyn ee laba galaanka ah aan la mari karin ee rafaadka ah ee silica ah ee waxa laakiin hadii dhulku banaan lahaa Daesh waa hore soo afjari lahaa ay Puntland leedahay ciidamada Puntland ee dagaalka ku jira oo aad u fara badan oo nooc walba isugu jira hadii aan lahayd daraawiishta hadii aan lahayd ciidamada BNBF-ka Greyska iyo ciidamada kaleba ayaa dagaalka ku jira kuwaas oo markaas muddo 2 bilood qalaxaas iyo buuraha waaweyn ee hoostooda ku dagaalamaya kooxda Daesh ayagoona markaas naftooda u horaya sida ay dadka reer Puntland isaga dulqaadi lahaayeen kooxdan mayalka adag oo dhulkaasi ku haysatay muddo dheer isla markaana dhibaato weyn ku haysa dadka shacabka magaalooyinka ganacsiga iyo wax walbana dhibaatooyin waaweyn u geysatay sanadihii la soo dhaafay wad maadsantiin akhyaaray warbixintan aan kaga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay dagaalka Daesh ee Puntland intaas ku soo gabagabeynayna muuqaalka la garay channelka subscribe saar